بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كيان نص عنه حرفي قاب سنتنسياش السكو حريرية وانكسو هذا رياضي مركا لغة إنجليز كنتا سوكمانان أو قبتا رياضي دان markii lagu hadlayo mise markii la qorayo waxaa lagu soo koobay 8 group part of speech ayaa la dhahaa 8 group waa kuna sideedaas ay luqadda dhan ka kooban tahay ereyada dhan waxaa lagu jumciyay waxaa laga soo dhigay 8 group ayaa loo kala qaybiyay groupka u horeysa waxaa la dhahaa noun verb adjective adverb pronoun preposition conjunction interjection waa noun verb adjective adverb pronoun preposition conjunction interjection marka noun waxaa weeye shay kastoo wax magacaabaya marka tusaalooyin ayaan meeshan igu qoray iyo example iyo mithaal ayaan intan igu qoray مثلا cat table Soomaaliya xamar Axmed waxaan waa shay kastoo wax magacaabaya cat waa nyaanyuur table waa miis Soomaaliya waa wadan xamar waa caasimadii waa taqaantiin Axmedna waa magac marka shay kastoo wax magacaabaya oo luqadda Ingiriiska waxaa la dhahaa noun waa shay kastoo wax magacaabaya waxaad dhihi kartaa kursi book waxaad dhihi kartaa qalinka wax qalin magaciisa waxaa waaye waa pen kaduya kan oo qada qabo kan kale oo caadigana waa pencil aad leedahay shay kasta oo wax magacaabaya wuxuu noqonayaa noun ayuu noqonayaa hataa buur wax magacaabaya buur waxaa sibil waxay noqonaysaa noun ayay noqonaysaa verb ayaa noogu xigo verb waxaa weeye waa ficilooyinkii waa ereyada tusaya ficilooyinka marka jump waa ficil waa boat jump boat korbot run waa orod sit fadhiiso write qor rab tester stand kor istaag shay kasta oo ficil erey kasta oo ficil tusayo verb ayaa la dhahaa waxaa noogu xigaa adjectives sida beautiful tall black white ugly way badan yihiin insha Allah laakiin hadda waan kor marayaa laakiin mid kasta si fiican ay u faahfaahin doonaa insha Allah waxay yihiin beautiful waa qurux tall waa dheeri black waa color oo madow ah white waa color cadaan ah ugly waa fool xumi marka adjective kan waxay sifeeyaan noun ka ayay sifeeyaan mise pronoun ka ayay sifeeyaan waxaad dhihi kartaa tall boy مثلا yes tall boy white cat mise brown cat and beautiful girl beautiful waxay ka hor imaanaysaa nounka hortiisa ayaa la dhigaa tusaale haddaan tuso waxay noqonaysaa مثلا black ereyga markaad aad u isticmaalaysid dhinaca hadalka mise qoraalka waxaad leedahay black wall mise waxaad dhihi kartaa white chalk tusaale kale waxaad dhihi kartaa ugly hyena saddex waxaa meesha noo qoray wall waxaa weeye waa nounkii chalk waa noun hyena waa noun erayadan hortaada imaanayaan waxaa weeye waa adjectiveka marka waxay sifeeyaan nounka aad ka hadli doontid ayay sifeynayaan black waa madow waa derbi madow soo martid derbi madow af Soomaaligu waa dhinaca kale waaye laakiin kan madowga ayaa soo hormarinaysa shayga aad ka hadlaysay objectka ayaa xagga gadaal maraya marka waxay noqonaysaa black wall waad sifeynaysaa derbi noocyo haddii la dhaho derbi cadeen miya ma derbi madowba ma derbi weynba ma derbi yarba
weynida yaridaas madowga waxa dhan ay adjective la dhahaa waayo waxay sifeynayaan derbiga aad ka hadlaysid wuxuu yahay ka white chalk waa baashan lagu qorto blackboard-ka lagu qoro waa cadeen baa leeyahay baashaas wax lagu qoray waa cadeen ugly waa foolxumo haynana waa dhurwaa foolxun marka foolxumadii ayaa soo hormaraysa dhurwaag waxaan ka hadlaynaa dhurwaa foolxun ugly waa foolxumada marka waxay tilmaamaysaa dhurwaaga sida uu yahay ayay noo sifeynaysaa marka adjectives waxaan dhahnay waxay sifeeyaan nounka iyo pronounka ayay sifeeyaan qaabka ay yihiin iyo waxay yihiin waxaan ugu xiga adverb waxay ziyaado noogu sii sheegaan verbka ay wax ziyaado noogu sheegaan quickly mathalan waa degdegsiinyo misaaraka slowly waa si oo qaab hoos tartiib high waa kor lowna waa hoos marka tusaale haddaan soo qaato waxaad dhihi kartaa he was running slowly running slowly soo ma artiin running slowly marka tan gadaal ayay ka maraysaa running waa ficilkii oo dhacayo markaas slowlyna waa caayar ayuu ordayaa weye marka waxay noo sheegaysaa wax ziyaado ay noogu sheegaysaa ficilkii qaabkii u dhacay uu ordayay si tartiib ayuu ordayay meel kore ayuu saaritaanka waa ficil korkaasna waxay noo tilmaamaysaa ficilkii meeshii sidii u dhacay intusaysaa si xawli ayuu u ordayay orodka waa ficil orodka waa running xawlina waxay noqonaysaa quickly mise fast aad dhihi kartaa ayuu shayga u dhacay marka adverbka waxayna tusaysaa siduu verbkii u dhacay sidii uu ficilkii u dhacay ayay ziyaado noogu sii sheegaysaa waxaa noogu xigaa pronoun waxaa weeye waxaad u isticmaali kartaa bedelkii nounka waxay u istaagi kartaa bedelkii nounka mathalan shay noun ayaa qoribtay waxaad dhehaysaa he she mise it mise way badan yihiin intaad dhihi lahayd cat ayaa waxaad leedahay it mathalan waxaad ka hadlaysay nyaanyuur the cat is here nyaanyuurti waa tanaa marka catka haddaad meesha ka bedeshid it bedelkeeda way qaadan kartaa it is here haddaad dhahid waxaad noo sheegaysaa inuu meesha u yaalo xawayaan oo nyaanyuur uu yahay it marka waxay u istaagi kartaa bedelkii cat waa noun marka pronoun waxaa loo isticmaalaa haddaad shaygii aad ka soo hadashay aad rabtid markasta aad rabin inaad ku celceliso waxaad u isticmaali kartaa pronounkiisa ayaa isticmaali kartaa oo it sidoo kale she waxaa weeye waa ayada dhinaca dumarka ayaa loo isticmaalaa hina waa isaga mathalan waxaad ka hadlaysay axmed inaad markas kusoo celiso maratid marka waxaad leedahay he wuxuu u istaagayaa bedelkii noun tusaale haddaan nituso axmed is writing axmed wuu qorayaa is writing axmed is writing wax ayuu qorayaa axmed marka axmed waa noun waan bedeli karnaa waxaan dhihi karnaa mathalan waxaan isticmaalaynaa pronounkiis he is writing he is writing marka axmedkii aan meesha ka bixinay he ayaan bedelka ku bedelnay oo u istaagi kartaa he asaga wuu qorayaa axmed is writing taasna waan fahamna umaleyaa marka waxaa noogu xigaa preposition ayaa noogu xigaa preposition waxay noo sheegayaan relationka ka dhexeeya pronounka iyo nounka iyo shayga laga hadlayo mathalan on waa kor in waa hoos gudaha above-na waa kor waxaad ka hadlaysay noun certain noun ayaa ka hadlaysay mathalan axmed ayaa ka hadlaysay axmed marka waxaad rabtaa inaad dhahdo guriga ayuu ku jiraa
marka waxaad leedahay Axmed is in inta waxaan tusaysaa nounkii meesha uu yaalo ayaan tusaysaa on مثلا book ayaa kor saaran table-ka waxaad leedahay the book is on the table uu kor saaran waxay noo sheegayaan marka shaygii meesha uu yaalo ayay prepositionka noo tilmaamayaan shaygu wuxuu noqon karaa pronoun mise noun labadaba meesha ay yaalaan ayuu noo tilmaamayaa conjunction tan haddaan aan tusaale aan ii sheego waxaa the book is on the table. The book is on the table. On taas marka waxay noqonaysaa waa preposition. Book waa book waad fahamsantihiin u maleeyaa waa shay wax lagu qorto. The boogie is on wuxuu kor saaran yahay the table. Table waxa weeye waa miis. Marka on tan waxay tusaysaa boogie meesha uu ka yaala table-ka ayayna tusaysaa. And conjunctions waxay isku daraan sentences mise erayo ay isku keenaan مثلا but and or are or waa conjunctions anoo example isticmaalaya waxaan leenahay Ahmed and Ali marka intan labadan shay ayay isku keentay isku daraysaa and waa iyo Ahmed iyo Ali soo aragtiin marka conjunctions waaye maybe laba sentence isku daraysaa mise waxay isku keenaysaa laba noun whatsoever waxaa loo isticmaalaa markii sentenceyaal iyo waxaas isku jumcin rabo isku dar rabo but waxa weeye mise o laakiin se orna waa مثلا waxaad leedahay laba shay aad rabtaa inuu ruux kala doorto do you want a pen or a book pen or pen waa qalin mise book qalin mise book rabtaa misadaas ayaa waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waa conjunction because laba shay ay dhexdooda galaysaa soo ma aragtiin interjection waxa weeye waa erayo oo qeyro mise dareemo tusayaan oo lagu isticmaalo dhinaca Ingiriiska marka sida hooray and ouch oops ha haddaad aragtid erayadan oo lagu dhex isticmaalo sentence mise dhinaca hadalka waxay tusayaan dareem مثلا ruuxa ku istaagay ruux ouch leedahay hooray waa markii shay farax u dhaco kale mise wax aad reysiin ha waa qosolkii markii la isticmaalayo sentence hortiis ay imaanayaan waxaana مثلا ha calaamadaas ayaa loo isticmaalaa marka ka dambe ayaad qoraysaa waxaad ka hadlaysay saas ayaa loo isticmaalaa marka part of speech kan waa erayada dhan Ingiriiska ay soo kooban 8 ayaa lagu soo koobay marka insha Allah waxaan la tacaalaynaa kun eray ayaan la tacaalaynaa oo common oo zaid dadku u isticmaalaan kunka haddaan qabanno oon si fiican u fahamno qaabka loo isticmaalo waxay yihiin meesha galaan 85 waan fahmaynaa luqadan waan awood waan u yeelanaynaa insha Allah inaan ku hadalno luqadan marka si fiican casharada oo la socda wixii su'aalana la soo weydiiyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.